maamulka ganacsatada iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Wajaale ayaa taageeray go'aankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka qaatay sixir bararkii baahsanaa ee dalka ku habsaday. Munaasabadani oo ka dhacday hoteelka Makal Mukarraba ee magaalada Wajaale ayaa waxa ka hadlay anigoo ah gudoomiyaha degmada Wajaale ee magaalada ganacsiyeedka ee loo yaqaan Triportka maanta waxaan isugu dhimid shir degdeg ah oo aan kaga hadlayo amarka uu soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo aynu kaga hadlayno sixir bararka dalkeena saameeyay oo uu diiday madaxweynuhu in lacagta Soomaaliland ka hooseyso lacagta dalalka kale waxaanu soo saaray in lacagta dalka Soomaaliland ay la mid noqoto lacagaha dalka kale oo isku qiimo noqdaan isla markaana cidda fulin doonta ay tahay shacabka iyo dawladda anigoo markaa dawladdu u matalaya degmada Wajaale waxaan halkan baaq qaaban iyo baaq dheer uga diraya maadaama gudoomiyaha degmada ganacsiyeedka ahay in arrinka madaxweynuhu fulo gorgortana ma gelayso waa amal madaxweyne oo gudoomiyaha wasiirada iyo dawladda Soomaaliland ay soo saareen dalbaynu nahay waxaynu dalku nahay oo dal walba dalku yahay inaad calankeena tursra aynu ilaashano haddii aynu ka ilaasho weyno dalmane waad arkaysan dawladda maanta jaarkeena sida marka allaaliya marka ay yiraahdaan waxaas jira abaabada loo xiray haddii aanay hore Wajaale uga jirin way ka jiri doontaa dawladda Soomaaliya waxa madaxweynuhu soo saaray in halka dollar lagu sarifi doono 7,000 oo shilinka Soomaaliland sariflaha ama baamishariga kala duwan cidii lacagtaas socodsiin weyda ka shaqeynayso degmada laga wada dheregsan yahay halka waxa ku dhan maamulkii degmada Wajaale gudoomiyihii degmada Wajaale xogayihii degmada dhammaan iyo anigoo ah gudoomiye ku-xigeenkii degmada Wajaale ganacsatada odayaasha degmada dhalinyarta isagoo faahfaahin badan ka bixiyay digreetadii uu soo saaray madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inaguna taakiidinayna haddii aanu nahay maamulkii degmada Wajaale dadka reer Soomaaliland dhammaantood wax laga qabanayo oo lagu toosinayo oo loogu naxariisanayo ama lagu taakulanayo dadka danyarta ah ee sixir bararku aafiyay diyaar baan u nahay inaanu ka ganacsato ahaan ka dadweyne ahaan ka reer Wajaale ahaan inaanu dhammaan isag taagno xukuumadda annaguna dhankayga wax kala qabanaa anagu diyaar baan u nahay ugu taageeri karaynaa aynu ka ilaalino lacagta qalaad ee aynu ku kaydsanayno jeebadeena lacagta qalaad waxa weeye wax ku soo iibsa ayaa macnaheedu yahay laakiin kaydsan maaha for example waxa weeye maanta ninka ugu yar ee maanta Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV magaalada Wajaale.